السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكني وتيفي عالمية يونيفرسال وحنا كسوقنا هاي مقالة مانشستر وكنت الله وقويقة ودنك إنجليزكا وحكا سعودة عياره سومالي جونيور تشامبيونز وحا سوقي ميساك وارتان تيمام أفر بدن وككلمات ودمضة درس كلا يوروب يو ودنك إنجليزكا إمينكا وحنا ميكروفون كوريجينيا قدوميها ويدورد بارك سبورت كلاب مستر حسن جبوتي سيو نوفرو برنامج كان قروح بدن سند والبلو قبطو مقالة مانشستر dadweynaha inta ciyaaraha jecel inta kubadda jecel inta ciyaaraha xiisaysa ku soo dhawaada magaalada Manchester iyo markii toddobaad aan ku qabanayno ciyaarihii Somali Junior Championship dhammaan waxa leena waxa ka soo qayb galay meel kasta ka yimaadeen ba ku soo dhawaada magaalada Manchester mahad waxa iska leh magaalada Manchester odayaasheeda iyo hooyooyinka iyo caruurta iyo ciyaartooyga oo ma aragtay oo hirgelisay ciyaarahan si fiican ay u dhacaan marka waxaan leenahay dhamaantiin soo dhawaada iyo ciyaaro wanaagsan good luck hadda waxaan ku soo dhaweynayaa odayada magaalada Manchester Master Migiste marjac magaalada Manchester ku soo dhawow alxamdulillaah rabbil caalamiin dhamaan marti sharafta dhamaan ciyaartooyga dhamaan dadweynaha reer Manchester anigoo ku hadlaya magaca odayada gudiga marjaca waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada magaalada Manchester gudidan waxa ka ah oday Shariif Seenow oo runtii maanta ku maqan safar London marka sidaa daraadeed anigoo ku hadlaya dhammaan odayada reer Manchester afkooda waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada Manchester United haysmartiyeynina minankiini waay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wathanaa'u lillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam waxa aad iyo aad farxad iigu ah markii toddobaad sanad walba imanayay sida ay u bilaabeen inaan junior competitionska Manchester ka soo qayb galo maantana iyadoo aniga iyo rag badan oo legendskii Soomaaliya ciyaartooyga ay la socdaan iyo madaxba waa idin hambalyeynayna sida aad toddobada sanaba u maamuleyseen sanadba sanadka ka dambeeyeen inaad sii dadaashaan oo ka kordhisaan waan ku farxayaa ciyaaruhuna rasmiyan waa furan yihiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa sharafi ah inaan ka soo qayb galo markii afraad ciyaaraha Manchester lagu qabto oo ubadkeena reer sanad walba ay ka qayb galaan waxaanan u hambalyeynaa runtii gudiga iyo dadka soo abaabulay yar iyo weynba isku taxallujiyay in ubadka Soomaaliyeed sanad walba la isku keeno ka qayb gala ciyaarahaas runtii wax lagu farxo waa wax ku dayasho mudan gobolada kale ee wadankana waxaan kula dardaarmi lahaa inay amba qaadaan Manchester runtii ciyaaraha sanadkay qabtaan iyagana inay ku daydaan hambalyan leeyahay
waa idin hambalyeynaya anoo ku hadlaya magaca odayaasha amba dhallinyarada isboortiga amba ciyaartooyga barisamaadka magacoodana ku hadlay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. daawadayaal cayaarahan ay isugu yimaadeen dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka kala timid wadamada Yurub iyo waddankan Ingiriiska waxa lagu yaqaanaa inay ka soo baxaan dhalinyaro aad u fara badan oo mustaqbalka u ciyaari karta naadiyada ka dhisan wadamada Yurub iyo waddankan Ingiriiska. Sanad u sheegnay Whitworth Park waxay la shaqeeyaan kooxda weyn ee ka dhisan isla magaaladan iyo garoonkan aan joogno ee Manchester City. daawadayaal cayaarihii Somali Junior Championship ayaa wali si xiiso looga socdaa dhankan indoorska ah ama gudaha garoonka waxa ku ciyaaraya dhalinyarada da'doodu ay ka yar tahay 12. dhankan haddii aan aragno waxa ka socda ciyaartii dhexmartay kooxaha Bristol iyo North London. dhinaca midigna waxa ku ciyaaraya kooxaha Scandinavian iyo Birmingham. banaanka waxaa jira ciyaaro kale oo under 14 ay ka ciyaarayaan. marka dadweynihii ka soo qayb galay ciyaarahan quruxda badan ee iminka socda waxay aad ula dhaceen skillska iyo qaabka ay u ciyaarayaan dhalinyaradan da'da yar ee Soomaaliyeed ee laga kala keenay sida hore kugu sheegnay wadamada Yurub iyo magaalooyinka waddankan Ingiriiska. isla markaa waxaa jooga garoonka Scouts oo ah dadka xula ciyaaryahanada mustaqbalka ka ciyaari doona horyaalada wadamada Yurub iyo waddankan Ingiriiska. sanad walba way yimaadaan waxayna ku arkaan dhalinyaro da'yar oo Soomaali ah oo skills leh waxayna u qaataan naadiyada ka dhisan qaasatan magaalada Manchester iyo gobolada waqooyiga Ingiriiska iyo koonfurta Ingiriiska way ka dhisan yihiin tiimamka ugu waaweyn waddankan Ingiriiska. daawadayaal saa ku aragtaan banaanka garoonka waxa ka socda ciyaarihii under 14 ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee dadoodu ay ka tahay 14 kuwaasoo ciyaaraya ciyaaro aad u xiiso badan oo dadweyne aad u fara badan ka soo qayb galeen. tabcan isku aadka markuu dhamaado dhowr saacad ka bacdi waxa dhacaya in la isku soo baxo final labada dhinac ee under 12ka iyo under 14ka ee ciyaaraha Whitworth Park Somali European Junior Champions. saa la socotaan waxa ka soo qayb gala mar walba ciyaarahan ka dhaca magaalada Manchester lagu casuumaa shakhsiyo isboortiga Soomaali aad loogu yaqaano isla markaana ka shaqeeya horumarinta iyagoo safar dheer ka soo galay caasimadda waddanka Ingiriiska magaalada London. waxaana la jooga laacibkii weynaa Axmed Nuur Maxamed Xaaji Sheegar Ruurka isla markaana gudoomiyaha ururka mideynta qurba joogta iyo horumarinta isboortiga. Axmed Nuur safar dheer ayaa soo gashay maanta laakiin waxaa aragtay wacdaro dhalinyaro Soomaaliyeed oo da'doodu yar tahay oo mustaqbalka kale isboortiga. bismillaahi raxmaani raxiim. cabdinaasir waa mahadsan tahay. horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta ka soo qaybgalka aan ka soo qaybgalay dhalinyarada yaryarka ee mustaqbalka aan rajaynayay inuu u noqoto maxaan dhihi lahaa dhalinyaradii Soomaaliya maanta maxaan dhihi lahaa difaaci lahayd yani qarniyada soo socda ama waqtiyada soo socda ilaahay hadduu yidhaaho waana ku faraxsanahay yani marna ma aan malaysanaynan kaaga hadlaa dhalinyarada yaryarka inay ma aragtay saan active ay u yihiin yani hadda ururkan Whitworth Park oo qabanqaabadan ciyaarahan iyo shayna ayana sidoo kaleeto waa mid aan yani aan u mahambaliyanayo aan leeyahay yani waxaan rajayn meesha inaad midaad ka sii wadaan ay noqoto annagana yani sidii encouragement ama waxyaabo waxqabad kooda ay wadaan ma aragtay aan mar walba u garab taagnaan lahayn aan ilaahay idinkiisa aan rajaynayna hadee waana guul iyo farxad maanta yani ma malayn kartid aan ku sheegaa dhowr iyo 10 kooxood ama 20 kooxood ku dhawaadkooda maanta imaashada meeshan ay ciyaaraha ay ku qabteen yani ciyaaro waxa waa yani dhaxalgal ah mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah oo wadankana maxaan ilaa xataa maanta dad wax ku kordhin kara inay tahay aan ilaahay idinkiis midaan rajaynaya ay tahay. Axmed Nuur markii aad furteen adig iyo laacibkii horseedii qaranka Maxamed Ismaaciil gudaha waxaad ku soo daawatay ciyaar aad u xiiso badan oo under 12 ay ku ciyaarayaan oo wadamada Yurub ay kala yimaadeen waxa hadda joogta banaanka under 14 ay ku ciyaarayaan. inta badan isboortiga Soomaaliya waxa la isku haystaa waxyaalaha dhaca laakiin maalmahan oo kale marka aragtay dhalinyaro saan isugu timid iyagoo jooga garoonkii Manchester City jooga maxaa dareemaysaa? wallahi waxaan dareemayaa yani kulli ishaysada yani hadda maaragtay sportska waa la isku haystaa leeyahay waxa hadda maaragtay maanta baabi'in u noqon kartaan ku sheega dhalinyarada yarka mustaqbalkooda oo soo socda leeyahay oo aan rajaynayno yani dadka qabanqaabadeeda ama waxeeda mid ay sameeyaan ay tahay yani in khilaafkan hadda waa jira leeyahay yani maaragtay mid uu ku baabi'i karo ama uu ku baabi'i doono inay noqon karta maaragtay yani ishaysada iyo qabsiga waa la ishaystaa leeyahay inta badan. daawadayaal inta badan
cayaaraha markay socdaan waxaan aragnaa hooyooyinka Soomaaliyeed inay la yimaadaan caruurtooda laakiin waxaan u jeedaa aabba Soomaaliyeed oo mar walba meel sport ka dhacayo ka qayb gala kaasoo ah ciyaaryahan Soomaali aad looga jeclaan loo yaqaan Abaliisha markuu u horeysay ay u faraxsanahay inaan ku kulano Manchester mar labaad ka waran qaabka loo ciyaaray ciyaarahan socda under 14 under 12 command aad baa u mahadsantahay Cabdinaasir runtii ciyaarta 14 jirka ilaa 13 jirka ilaa iyo under 16 ka runtii waxa way mustaqbal u leh ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan aad ugu faraxsanahay mar walba Manchester ay dhalinyarada degan ama komunitada Soomaaliyeed macni Faarax iyo groupkaas iyo Fuad iyo runtii wax weyn ay qabtaan annagana insha Allah heer London inaan ku daysanaa jecelnahay markasta waxaan jecelnahay inay ciyaalka mustaqbal fiican u yeelaan ama ay waqti siino si ilaa raali ka dhigo Ahmed waxa tusaale aan kaaga dhaynaa mar walba aabiyaasha sababtoo aabiyaashani aad ayaa loo eeday kama soo qayb galma imaano laakiin mar walba gobolka soo la tago ciyaar ka socdaan marka odayaasheena kale maxaa halkan ugu sheegi lahayd waxaan dhihi lahaa ciyaartoyda Soomaaliyeed ama kuwa odayaalka aabiyaalka waa inay hooyooyinka gacan siiyaan ilmahooda ay keenaan meelaha lagu ciyaaro sida anoo kale iyo dadka qaarkood aan arkay aabbaas yar waa ku yaryihiin aabiyaalka hooyooyinka ayaa ka fiican runtii markaan kuu sheego laakiin aabiyaalka waxaan rajaynayaa inay ayagana waqti siiyaan carruurtooda doo ilaa sida anoo kale iyo Maxamed Ismaaciil oo kale doo ilaa aad u mahadsantahay Cabdinaasir iyo Jibriil daawadayaal weli waxaan ku sugannahay magaalada Manchester ciyaarihii si xiiso leh ay u socdaan waxa ila jooga shakhsi aad si fiican u taqaanaan xataa ma doonaynin idin baro Axmed Sheel madaxdeena qaranka isboortiga Soomaaliya oo meel walba isboortiga Soomaaliya ku jira laga weyn ka war maanta Manchester safarka ku timaadeen zola aad baad u mahadsantahay xaqiiqdii anigu 7 sano ilaa maanta bilaabeen buu imanayay sanadba sanadka ka dambeeya hore u sii kacayeen waa arkaysa technically waxaan xasuusaa sanadkii koobaad iyo kii labaad xitaa balooniga ciyaalku ma qaban kareen waa ka hoos dusaysa every year development baa dhacaya sanadkan waad arkaysa technically kooxo prepare oo ka fiican heerkii hore ayaa ka tartamaya ragga qabanqaabiyey tartankan ee reer Manchester dhalinyaraduna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waajibkoodii way guteen laakiin waa in man lam yashkuri الناس lam yashkuri Allah waa in lagu amaana ciyaaruhuna aad bay u fiican yihiin heer saran waa ku socdaan waxa kala kulmay gudoomiye ku-xigeenka ururka mideynta qurba joogta iyo horumarinta isboortiga Xaaji Maxamed Khaliif oo mar walba ka soo qayb gala goobaha ay ka dhacaan ciyaaraha lagu horumariyo isboortiga Soomaaliyeed su'aasheedu waxay ahayd Maxamed Khaliif bal iga waran safarkan dheer aad ku timaadeen magaalada Manchester iyo qaabka ay u socdaan ciyaarahan ka socda Whitworth Park Sport Club iyo Manchester City bismillah alxamdulillah Cabdinaasir run ahaantii aad u mahadsantahay marka hore ciyaarahan run ahaantii waayihii hore waxaan ka fiirsan jiray TV-ga muddo dheer 3 sano meelaha ay ka badan ayay socdaan runtii ciyaarahan waa ciyaaro aad u qiimo badan runtii dadkii ciyaaraha hore uga imaan jiray aniga TV-gan ka fiirsan jiray waxaan arki jiray in aad uga heer sareeyaan maanta oo runtii kubadda si isugu dhiibaan dhalinyaradan iyo maartay runtii maasha Allah waxaan filayaa inay ka soo bixi doonaan dad maartay mustaqbalka Soomaaliya leh run ahaantii waxaana mahaddaas iska runtii jaaliyadda Greater Manchester ورun ahaantii jaaliyad aad isboortiga u hoolan ah sida isugu duuban yihiin mid maasha Allah mid yaani waxay tahay Ilaahay u zaa'idiyo dadkooda waaweyn dhalinyaradooda yaani kulli waa dad aad isugu wada duuban ciyaarahan ciyaara loo baahan yahay waana mid run ahaantii sanadkii ugu horeysay aan ka soo qayb galay ay tahay mudan ku dayasho aad u wanaagsan insha Allah yaani London iyo meelaha kale iyo waxaan jecelahay intii daawanaysan in arrimahan oo kale la hirgeliyo si dhalinyarada yar yar loo soo kobciyo isboortiga loogu dhiirigeliyo runtii maasha Allah wallahi dadkan reer Manchester dad waxa way aad iyo aad u wanaagsan Cabdinaasir daawadayaal soo horeed kugu sheegay looma kala harin ciyaarahan ka socda magaalada Manchester Whitworth Park waxa ila taagan legend ayaa ila taagan Maxamed Ismaaciil Sitey qaranka iyo kooxda horseed ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ismaaciil maxaad ku aragtay maanta Manchester بسم الله الرحمن الرحيم أوتو ما سنتين فيرتل تي في قيبتها فاقدات عيارها صولا برق كاميرا مان جبريل وايدن سلامي دمانتين runtii aad baan ugu faraxsanahay waana sanadka afraad aan ka soo qayb galo ciyaaraha Manchester lagu qabto ubad Soomaaliyeed wallahi waa wax yaani runtii ku dayasho mudan ay la taaniga Maxamed ahaan waxaan kula dardaarmayaa gobolada kale ee wadanka Ingiriiska ama Soomaalida meel kasta ay joogaan inay ku daydaan waxa Manchester ka socda sanad walba iyo intaas oo ubada Soomaaliyeed oo da walba leh oo ilaa iyo 9 jirka ilaa iyo 15 16 jirka sanad walba
ay martigeliyaan ciyaaraha la isku keeno ee ka qayb galaan waxay la tahay mustaqbalka soo socda in la heli doono ciyaartooy badan oo Soomaaliyeed oo Premiership-ka nooga qayb gala hadii la yiraahdo insha Allah. inta badan waxa lagu yaqaanaa goobaha isboortiga ka dhaca ee Soomaaliya isugu timaado burbur ayaana ku dhacaysa la socotid isboortiga wadanka Soomaaliya waxa lagu yaqaanaa qof hadalkiisa maaragtay talks his own mind ayaa la yiraahdaa marka dadka isboortiga Soomaaliya ku dhex jira ama maamula iyo ka shaqeeya maxaad u sheegi lahayd markaad aragtid maanta dhalinyaro da'doodu ay 16 ka wada yarta halkan isugu yimid oo la doonayo mustaqbalka in la soo saaro oo lagu horumariyo isboortiga Soomaaliya sad u sheegtay burburka ka dhacay isboortiga Soomaaliya dad baa ku lug leh runtii aan usay ila tahay dad baa ka dambeeya dad baa saas faa'iido ku qaba masaayib qoom cinda qoom fawaid bay la yiraahdaa carabta tiraahdaa qoom haduu musiibo ay ku dhacdo group kala ka faa'iideysanaya marka waxaan kula talin lahaa in ay imaadaan oo ka qayb galaan ay arkaan ubadka Soomaaliyeed oo awalba leh ee sanad walba Manchester oo markay afraad imaado ay imaadaan iyaga laftooda indhahooda ay ku arkaan maaha kaliya inay miis iyo kursi iyo telefoon iyo internet inay ku dhex jiraan iyo computer inay imaadaan goobta imaadaan meesha hadaan taaganahay aan intaasoo soo soconay kulligeen macaydinka macaanaka macayntan joogta inta Manchester degan ma inta kale amba ciyaartooy ha noqdaan amba hooyooyin ha noqdaan waa aragtay iyo aabyaal waxa soo socda dad basaaka 6 subaxnimo ka soo baxay London oo ka soo gaarsiiyay ciyaaraha ka soo qayb galaan dad baa xalli soo hoyday marka iyagana xafiisadii bay fadhiyaan waxaan kula talin lahaa inay ka soo qayb galaan ay arkaan meesha waxa ka socda leen iyaga isku sheegeen yihiin dadkii wax maamulayay ninkii wax maamulay haduu meesha ka maqan waxaan maleynaa meesha faa'iido ay leedahay male ka soo qayb galaan leey arka ubada Soomaaliyeed meel ka soo joogan maamulinta waliba London bay joogaan dadka wax maamulaya waxaan kula dardaarmi lahaa inay yimaadaan ay ka soo qayb galaan aniga waxa lagu yaqaanaa in runtaan sheego meesheedana wali taaganahay inta aad miisaska fadhidaan computerka iyo internetka dhex fadhidaan waxaan u maleeyaa wax ka hagaagay male amba xilka iska soo wareejiya amba sidee tahay ummadda loo qabtaan leeyano ugu dambeyntii horseed iyo under 16 kan horseed haday is heli lahaayeen maxaa ka dhici lahaa Maxamed Ismaaciil kooxda horseed waqtigeegii wallaahi kullaba iyagu annagu waxaan ku nasiib lahayn dad wadankoodii ku nool baan ahayn oo dagaal la sokeeyay ma dhicin dad wadankoodii shacbigoodii dadkoodii ku nool iyo guriyahoodii waalidiintoodii iyo ummadoodii ku dhex nool oo jecel ayaan ahayn nasiibkaas horta iyagu mabay uma yeelan iyaga laakiin dhinaca teknolojiyada iyo garoomadan haddaan arkayno annagu nasiib ma yeelan waqtigeena haddaan kono kale heleen waxaan maleynayaa in heerkan gaarnay inaan kasi meel ka fiican gaar lahaa laakiin kullaba ubadka Soomaaliyeed intaan hadda meesha ku arkay kullaba rajayleeyeen dad wax fiican baa laga helayaa dad badan baa laga helayaa oo fiican hadii xagga laga sii wado oo aan laga saxin aanay noqonin uun qowda maqasho waxa uu qaban waxaan kula daarmina reer Manchester hawsha ay bilaabeen ee hadda inta sano socotay in xagga ka sii wadaan annakana waxaan leenahay garabkiina taaganay hil iyo hooba gobolada kalena waxaan kula talinayaa inay ku daydaan Manchester City waxa kala kulmay garoonka ciyaaraha ka socoto gudoomiyaha Wish Academy Mr Daahir Ciise Bulxan Mr Daahir Ciise bal ka waran safarkan dheer oo soo gashay magaalada Manchester iyo ciyaarahan ka socda oo ay soo abaabuleen Woodward Park Sport Club aad u mahadsantahay Mr Solo ciyaarahan runtii waa ciyaaro la qabto sanad kasta ay qabtaan Woodward Park Manchester runtii waxaa meeshan ka salaamaya marka koowaad Fuad Osman oo ah ninkiina baray Manchester Woodward Park maamulaha Xasan iyo dhammaan Woodward Park runtii waa dad ku dayasho mudan Manchester waxa isku keenay intaas oo ah ilaa 40 kooxood oo arkeedo oo da' walba leh waalidiintii macnaheedu City Academy oo maamulkeedii dhamaa aad bay noo soo jiiteen runtii waxa ay sameeyeen Solo aadan ugu faraxsanaa markastana waa u nimaanaa oo maadaama aan wax u qaban karin oo waxooda dhan ay haystaan package ahaan inaan morality ahaan aan taageersanahay inaan tusno u nimaano ilmaha Daahir Ciise waxaan rabaa qaabka idinka u shaqeysaan xilligii aad tagteen magaalada Muqdisho Wish Academy iyo qaabka Woodward Park runtii waxa la wax aad isugu soo dhow sababtoo ah waxa aad focuska u saartaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo koraysa bal waxyaalaha laga doonayo dadka doonaya inay ururo cusub sport sameeyaan halkay ka bilaabayaan runtii anaga waxaan ka bilownay degmooyinka ka bilownay ilmahooda Woodward Park waxa u maleeyaa inay naga nasiib badan tahay maxaa yeelay waalidiinta meeshan waa waalidiin maartay wixii waqtina haysta lacagna haysta ilmihiina facility haystaan anaga laakiin degmooyinka ka bilownay degmooyin wax haysta ma degmooyin anaga wax naga rabaan runtii anagana volunteer u sameeynay oo wax kuma qaadano fannan kuma siiyo dadka ururada ah oo lacagta ku qaata macnaheedu ama ay lacag ku soo gasho in youth program ay wax u qabtaa ilmaha
runtii waa dad u shaqey kara wadanka Soomaaliya maanta la joogo dibaddana ka shaqey kara taas ay anaga nooga nasiib badan yihiin iminka waxaan la joogaa gudoomiyaha Whitwell Park Sport Club Mr. Xasan Xuseen oo loo yaqaan Xasan Jabuuti samarka runtii aad ugu faraxsanahay habeenkii wareysiga aan sameynay waxaan yiri sanadkan waa samar waa ku soo aaday ciyaarihiina waxay u furmeen si aad u qurux badan iyadoo ay ka soo qayb galeen kooxaad u fara badan ka waran jawiga Manchester maanta wallahi jawiga Manchester aad iyo aad buu maanta u kacsan yahay dadka Manchester oo dhan aad bay maaragtay u faraxsan yihiin wajiyaasha badankooda hooyooyinka iyo aabayaasha iyo oo u daawo yimid carruurtooda inay daawadaan aad u faraxsan yihiin annagana aad iyo aad aan u faraxsanahay inkastoo shaqada weli dhex bartamiin socoto laakiin farxad aad nooga muuqata waayo waxa farxad kale muujiyay odayada nooga yimid London iyo ayaguna farxad noo muujiyay aad baan u faraxsanahay waxaan rabaa kulley waxaan filayaa saaxiibkeena Mr. Fuad Cusman inuu daawan doono barnaamijkan caawa socda marka maxaa fariin oo aad u fari lahayd oo ugu dir lahayd meel uu ka joogo Soomaaliya saaxiibka horta marka hore waxaan leeyahay soo noqod wanaagsan marka labaad waxaan ku leeyahay saaxiib ciyaari si fiican bay u dhacayaan wax welwel ka qabtaana male insha Allah si fiican oo u daawan doontaa marka ilaahay safar wanaagsan ku soo rajeeyo iyo soo noqod wanaagsan ugu dambeyntii maraan la hadlay marti sharafti ka soo qayb gashay waxay ii sheegeen isbedel weyn inuu ku dhacay sababtoo skillski iyo qaabka ay u ciyaaraan goolashay dhaliyaan sanadadii ugu dambeysay aad uga duwan yahay xogaa improvement aad weyn timid marka halkay ka timid improvementigan improvement mar waxay ka timid laba dhac bay ka timid dhinaca adminka oo waxa ma aragtay dhalinyarada in la noqoto warqado hore in loogu diro in da'dooda la soo eego liiga ka in la soo ogaado iyo dhinaca oo maaragtay farsamada oo maaragtay ka codsanay koox kasta iyo kuwa liiga ciyaar inoo yimaadeen kooxan liiga ciyaaray inay ka soo qayb galaan ma ogolin saadaraadid kooxaha badan oo liiga ka ciyaaraan waayo waxay ku tusaysaa maanta skillska iyo xirfadaha ay la yimaadeen daawadayaal waxaa la yiraahdaa sportiga Manchester wuxuu ku socdaa guddiga marjaca oo ka qayb gala ciyaaraha iyo isu keenida dhalinyarada iyo sportiga Cabdi Maxamed Suleymaan oo loo yaqaan Mangiste oo ka mid ah marjaca magaalada Manchester ayaa la kulmay marjaca Shariif Zeynow iyo dadkii kale horta ku xigeenka Shariif Zeynow waxaad ii sheegtaa qaabka maanta uu socdo ciyaarahan ku qabateen magaalada Manchester runtii soo aad iyo aad baad u mahadsan tahay ciyaarahan si aad la socoto sanadkii mar baa la qabtaa dhowr jeer horena waad ka soo qayb gashay adiga laftaadu aad baad u mahadsan tahay adiga iyo tiimkaaga Universal TV halka waxaa la yidhaahdaa de waa caan oo magaalo caan oo waa taqaanaa sportska ku caana Manchester annaguna waxaanu nahay Manchester United sidaa daraaddeed waxa weeye sanad walba ciyaarahan waa la qabtaa intii ay carruurtu wax kale samayn lahaayeen ama meelo kale ay ku mashquulsanaan lahaayeen waxaan isku daynaa inay ku mashquulsanaadaan kubadda waxaa kaloo ila jooga madaxa sportiga Universal TV Cabdiqaadir Maxamed Faarax Biriq isla markaana waalid wiilkiisa ayaa ka dheelay Amiin ciyaarahan lagu qabto Manchester waa sanadkii afraad oo uu ka soo qayb galay Amiin mise Biriq su'aasheedu ugu horeysa waxay tahay jawiga runtii waa samar aad ayuu qurux badan yahay sanadkan skills ku isbedelan leeyahay ka waran qaabka Whitwell Park iyo sportiga iyo ciyaaraha ay u dhacayaan runtii Manchester maanta aad iyo aad horta marka hore waxaan u mahadcelinayaa reer Whitwell Park community aad iyo aad reer Manchester kulligoodba runtii aad waxaan u mahadcelinayaa sida kaliya inta soo ciyaartooy iyo inta soo odayaal iyo inta soo sport man runtii oo imaaday gabar iyo wiil iyo odayba leh sidii kaliya ay u soo dhaweeyeen ugu casuumeen halkan ciyaarahan maanta ka socdo oo aad iyo aad u qurux badan runtii sanadihii hore waxaan dhihi karnaa sanadkan waa sanadkii Cabdinaasir oo shanaad aan imaanay halkan sanadkan waxaan aad iyo aad u arkayaa sanadihii hore in ciyaaraha aad iyo aad u liiteen laakiin sanadkan waxaad muddaa ciyaaraha kooxaha inay aad isku dhaweeyeen oo ciyaaraha lagu kala badinayo hal iyo eber iyo lagu kala badinayo runtii waxaa ka arkaysaa in ciyaaraha ay aad isbedeleen oo runtii ciyaaraha aad moodayso horka ciyaaraha inay isbedeleen ta kale sanadihii hore waxaan arki jirnay in kooxaha ay aad iyo aad maaragtay dhinaca maaragtay positionka iyo markay ciyaarayaan kooxaha iyo dhinacaas oo dhan iyo difaaca kale iyo aad u xumaayeen sanadkan waxaa mutaa inay isku dheelitireen kooxaha runtii lama dhigi karo koox sanadkan aad kooxahaas badinayso aad isku dhaweeyeen kooxaha runtii maanta aad iyo aad waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha ka soo qayb galay maanta runtii iyo sidii kaliya Manchester City u gacan qabatay dhalinyaradan Soomaaliyeed maanta oo ilaa iyo intaas soo boqol gaaraya maanta halkan ciyaarta ku ciyaarayaan daawadayaal odayaasha kaliya ma ahan inta badan wiilasha waxa soo saara hooyooyinka Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed iyagoo ka kala yimaada wadamada Scandinavian-ka magaalada Manchester iyo gobolada wadankan waxaad u jeedaa gabdhihii inay inta yimaadeen waxaan rabaa markaa inaan dhinacan ka soo bilaabo aan su'aal weydiiyo say u aragtaan maanta ciyaarahan ka dhacaya Manchester aada u faraxsanahay because every year sanad kasta waana sugnaa hadda aadan u farxsanaa ilmahana waa farxsanay okay aad ma santahay haye sanad walba waa is aragnaa ciyaaraha si fiican u socdaan ka waran sanadkan ciyaaraha Manchester
wallaahi bilaa waxaan dareemayaa dareemo oo aan la koobi karin marka waxaan hobgareynaynaa inaan anaga maanta guusha qaadno insha allah aad u maasantahay بسم الله الرحمن الرحيم آدي آذا ugu faraxsanahay meeshan oo sanad walba la iskugu yimaado dadka kala yimaado gobolada kala gedisan si aan isku aragno oo isku barano isku dhaxgalno aadi aada ugu faraxsanahay anagoo support gareynayna caruurteena ka Soomaali ahaan aad u maasantahay بسم الله الرحمن الرحيم aniga oo maanta ku faraxsan in dadweynaha Soomaaliyeed ee parentka iyo caruurta iyo aabaha iyo hooyada caruurtooda hambaliyada wanaagsan mar walba daba sida sanad walba la isugu yimaado magaalada Manchester oo aan u maleynayno hooyga ciyaaraha tahay insha Allah on jecelahayna caruurta Soomaaliyeed in qaar badan oo guusha Soomaaliya iyo halkay ku nool yihiin ba ka dhaliya aan insha Allah bidmillaahi kariin laga heli doono aan jecelahayna waalidka dhala caruurta mar walba wanaaga ay leeyihiin intay yaryar yihiin inay ku sabooraan oo la daba socdaan midhaha hadii aan markay yar yihiin si fiican loo beerin marka ay weynaadaan ma wacnaadaan marka waxaan hooyooyinka fariin u dirayaa iyo aabaha dhala caruurta Soomaaliyeed inay nolosha ka qaataan caruurta ay leeyihiin insha Allah taala aan u rajeynayaa inay sanad walba isugu yimaadaan gool wanaagsan ay adduunka ka helaan aakhira iyo adduunyada Ilaahay u hagaajiyo adna waad mahadsantahay السلام عليكم maanta aad ayaan ugu faraxsanahay maanta ilmaheen guurka ay gaareen farxad aan la koobi karin way maanta shucuur aan la dareemi karin waxaan dareemeynaa inaan hooyooyin aan nahay wax fiican aan u qabanay ilmaheen heerkan ay gaareen waan ku mahadsan yihiin dadkii soo tababareen waalidiintii dadkii ka soo qayb galeen aad iyo aad baad u mahadsantiin horta qoladiina TV-ga marka hore marka labaad waxaan mahad u celinayaa dhammaan macallimiinta caruurta waalidiinta soo saartay ee ciyaarsiisay waxaan mahad u celinayaa sida la isugu yimi ee meeshan maalin sanad walba aan uga soo qayb galno ee caruurtayadu ciyaarto iyadana mahad baan u celinayaa sanad walbana waana rajaynayaa insha Allah sanadkan sanadka ka sii dambeeya inay ka sii fiicnaadaan oo heer wanaagsan ay gaadhaan wiilashoo dhan aad u maasantihiin بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta sharaf loo magaalada Manchester oo ciyaartii lagu qabtay sanad kasta lagu qabtay ciyaaraha Wydad Park ay qabato waxaan soo dhaweeynaa dhammaan martida nooga timid adduunka dacladiisa iyo galad Manchester qaybaheeda kale waa soo dhaweeynaa waxa la soo dhawaada waxaan hadda gudbiha xogayaha guddiga marjaca Korneel Maxamed Ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين magacayga Maxamed Ibrahim waaye waxaan ahay xogayaha guddiga marjaca odayaasha Manchester waxaan marka hore hambali iyo bogaadin u jeedinayaa kooxihii ku guuleystay ciyaarahan ama tartankan marka labaad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay annaga guddi ahaan guddi marjaca waxaan aad iyo aad ugu faraxnaa markii heshiis iyo waxyaabo la mid aan maqalno iyo isu imaansho iyo waqaala ahaansho markaan maqalno aadan ugu faraxnaa waxaan ku faraxsanahay odayaasha nooga yimid magaalada London Bristol iyo dibadahaba iyo yani saansaanta heshiis iyo maxaan ku sheegaa khilaafaad jiray dhexdooda iyo maanta oo ay midaysan yihiin oo ay yihiin dad isu soo dhawaaday bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah cabdi maxamed salaabaan mingista ana gudoomiye ku-xigeenka guddiga marjaca ee magaalada Manchester ama guddiga odayada ee sportska runtii waxaan jecelahay inaan halkan dhammaan ku soo dhaweeyo dadka martida ah ee nooga kala yimi meelaha kala duwan dalka UK anigoo ku hadlaya magaca odayada waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada Manchester guddiga marjaca waxa gudoomiye ah Shariif Seeno oo maanta naga maqan sidaa daraadeed guddiga hawshoodu waxay tahay dib u heshiisiinta iyo xalinta wixii khilaafaad ee dhinaca sportska markasta waxaanu idin leenahay ciyaarahan sanad walba la qabto sanadka dambena Ilaahay khayr ay nagu gaarsiiyo markastana waxaan doonaynaa inaan marti sharafta ku soo dhaweyno soo dhawaada oo ku soo dhawaada magaalada Manchester بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أنا أهل تريها جدّة مرجعة أبو بكر علي وحن سودويننا مرتدى شرفتنا وقت مجالوين كلندن
iyo cayaartooyda oo ka soo qayb gashay cayaaraha sanad walba lagu dhigo magaalada Manchester annaka haddaanu nahay guddiga marjaca markaan aragno dhalinyaro isku timid oo wada cayaarayo waa ku faraxnaa marka ujeedada annaka aan noola abuuray waxa waaye in la hormariyo isboortiga hadduu khilaaf jirane in khilaafkaas aan dhamayno daawadayaal waxaan kula kulmay garoonka ay ka socoto cayaarta Woodward Park Sport Club cayaaryahankii weynaa ee badda iyo qaranka Mr. Cawad Xasan Cawad markuu guraysa ku soo dhaw faqadada cayaaraha mar labaad ka waran jawiga maanta magaalada Manchester aad iyo aad u wanaagsan tahay first time aan waan magaalada hadeertaan cayaarahan khaasatan lagu qabanayo Woodsbar marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan la kulmay wax oo caadi ahaan kooxo aad u fara badan 4 iyo 5 meelahaas ka sugay marka waa koox aad iyo aad u fara badan marka إن شاء الله maxaan rajeynayaa mustaqbal fiican dhalinyarta iminka waxa garoonka ila jooga macalinka caalamiga ah waa macalinka ugu weyn ee Soomaalida sportiga dhinaca tiknikada dhinaca waxbarashada dhinac walba Maxamed Saalim aad ugu faraxsanahay sanad walba inaan isku aragno ka waran tiknikada waa isbedeshay Allah meeshan xal ka waran Manchester waa ku maasantahay su'aale horta sanad walba isbedela tiknikada waxay dhan ilmeey waxay dhan ma sha Allah sanad walba halkeena ilmo waqti keek qaadana keek iska fiican yahay فإن شاء الله ما هذا وحاجة يركو إقرأ بالبرمنغهام نمبر 10 he's جروب كبنان he's the best one at the moment جروب كان حقا وحا from Bristol وحا يرفع وسجنه يعني وفير لنا إن شاء الله سنة كيس الودينا يا أو سنة كيس مقصن وجرا إن شاء الله يعني سنة والباس بدله ما شاء الله يعني marka waxa kale oo aan aragnay in dhalinyarada iyo waalidiinta ay xiiso badan soo yeesheen TV-ga program laga sameeyay imaada Allah dad aad maanta loo imaaday ka waran dadka ka soo qayb galay iyo waalidiinta iyo maxaa u sheegi lahayd horta waalidiinta waxa sanad every year sanad walba waalidiinta waa isbedelo ma sha Allah sanadkan waxa u jeedaa in waalidiin cunug walba waalid walba cunugiisa soo watay adan waxa bush gareena waalidiinta waxaan dheelahay sanad dambana waxaan filaynaa insha Allah in wiil walba hooyada iyo aabba marag isla soo jiraan oo ay keenan so ma sha Allah saas adan waxaan dheelahay tiimamka kale inta had soo qayb galeen hadii inta dhamaadan ya umaleenin one day tournament la inta sanadkii dhan one day tournament leeman waxaan dheelahay in sanad walba ilmaha had inta ka wadina say wadin London adeen Leicester Birmingham Manchester in meeshii si wada ilmihiisa ay tababaraan oo maxay dhaan oo waxa waqti macallimiinta kana waxay dhaan ilmihi ma jidka ma laga soo ruro daas waxaan dheelahay ma sanad walba train suubiyaan so waxaan dheelahay coachalki in ilmihi ka shaqeeyaan sanadan waqti imaanaysan si ka fiican insha Allah intii si aragno aad u maasantahay Maxamed Saalim daawadayaal waxaan kaloo la kulmay gabdhaha Soomaaliyeed oo keenay carruurta ka soo qayb galay ciyaarahan waxa ay la jooga haboon iyo mun ayaa la jooga waxaan rabaa inaan weydiiyo ka warrama maanta dadka martida idin ah magaalada Manchester iyo qaabka ay u dhacayaan ciyaaraha والله سؤال ماشي واد aragtaa aad iyo aad baa loo soo camiray aad iyo aad bay qurux badan tahay dhammaan waxaan u mahad celinayaa waalidadii isku soo kalifay ka soo qayb galay ka kala yimiday magaalooyinka kala duwan waxaan kaloo u mahad celinayaa wiilashii aad u qaban qaabiyay iyo soo dadaalay aad baan iyagana u mahad celinay adiguna mahadsantahay mudan haye halkan yaa ka salaamaysaa السلام عليكم وعليكم السلام يا سلاميسا aabe magacii aabe فاز ما شاء الله منى walaal ka waran xaalka maanta magaalada Manchester aad bay qurux badan tahay jawigu wadarkuna uu fiican yahay aan waxaan ku faraxsan yahay in waalidada ciyaarta aan ka soo qayb galnay saaka wad maasan tahay soo laadiga idinka mudan aad maasantiin okay wacays adiga salaamaysa أبا حسن الصومالية I'm
daawadayaal waxaa la soo gaaray cayaartii finalka under 12 waxaa isku soo baxay labada kooxood ee Manchester iyo Birmingham Small Heat ayaa isku soo baxay waxay ahayd cayaar aad u xiiso badan cayaarihii tan ka horeeyay ee semi-finalka iminka waxaan sugnaaba waa under 12kii runtii xamaasadda garoonka aad ay u weyntahay sababtoo ah waxaan aragnaa qaylo aad u dheer oo tifoosayaashii kooxaha martida loo yahay ee Manchester iyo kooxda ka timid magaalada Birmingham isugu yimaadeen cayaartan waxaa daawanaya dadweyne aad u fara badan oo soo buuxiyay garoonka indoorska ah oo cayaaraha ka socdaan waxaan sugnaaba waa cayaartii finalka under 12 ee kooxaha Manchester ee martida loo yahay iyo kooxda Birmingham oo darisla ah magaalada Manchester مسبرق waxa isku soo baxay Birmingham iyo Manchester Small Heat Tigers ayaa la yiraahdaa iyo Woodward Park kooxdooda oo sanad walba loo yaqaan inay imaadaan finalka ciyaar ku badiyaan ka waran ciyaartan xisaabtan dadka garoonka soo buuxiyay runtii ciyaartan waa ciyaartii ugu dambeysay waliba kooxdan hadda ugu dambeysay ee Manchester waxay ku soo baxday si adag rigoor ku soo baxday hadii rigooradaas kooxda North London ay rigoorada kooxda London ay ku badin lahayd waa harleed kooxda Manchester laakiin Manchester waxay aad u leedahay champion ku way sanad ka horan ayaga qaaday runtii ciyaartooduna ciyaar aad iyo aad u fiican waa runtii waxa laga yaabaa koobkan maanta inay qaadaan laakiin maanta ciyaartan ay la ciyaarayaan kooxdan Birmingham waa koox aad iyo aad u adag runtii oo laga yaabo waliba koobka maanta inay qaado www.safifilms.com iminka waxaan la joogaa maamulka iyo macallimiinta iyo madaxda kooxda Bristol Olympic oo ka timid magaalada Bristol bal waxaad ii sheegtaa qaabka uga soo qayb gasheen iyo Woodward Park ciyaarahan la qabtay runtii waa sanadkii labaad aan ciyaarahan ka soo qayb galayno maxaa la yiraahdaa maaragtay sanadkii hore waxaa jirtay in wareegga horeba nagula reebay laakiin sanadkan waxaan soo gaarnay ilaa semi-finalka ciyaaro badan oo qabanna waxaan ka qayb galnaa liiga gobolka ka tirsan oo ciyaartoyna ciyaaraan aniga muddo badan ayaan waqti ku bixinay aniga iyo Mr. Guusha iyo Mustafa aad maaragtay ayaan uga shaqaynay waxaana jirta even maxay ahayd week dambe 15 bisha in ciyaaro tournament aan soo wadnay muddo dheer lagu qaban doono magaalada Bristol haddii la yiraahdo idinkana aad nagala soo qayb gali doontaan idinkoo mahadsan maaragtay oo idinku casuumayna insha Allah mahadsanidin maaragtay insha Allah magaalada Bristol waxa lagu yaqaanaa footballka tiimam aad weyn ayaa ka dhisan bal qaabka uga soo qayb gashan ciyaarahan wax nooga sheeg marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad iyo aad baan idinku mahadinaya haddaad Universal TV especially saddexdiina ragga oo aan kala harin oo kala dhicin ma sha Allah aad iyo aad horta idinku mahadinaya secondly waxaan rabaa in ayadana dul istaago ragga walaalaheena ee sanad walba isku taxallujiya in halkan ay ku qabtaan tournamentigan oo waliba aad iyo aad sanadba sanad kale oo ka sii adag yahay waxaan leenahay ayakane jazakumullahu insha Allah ta'ala soo wajaclay intaan wax jiiday inaad wareysato laakiin goor la jiiday hadii wareysanaysa maxay heeday sida uu sheegay guushaabaan ugu mahadinna maxay heeday qabanqaabada fiican reer Manchester ay qabanqaabiyaan sanad walba maxay heeday in kullaba guushu dhinac bay raacdaayee labada kooxood ee final ku soo galayna maxay heeday waxaan u rajaynaynaa guul ciyaar fiican daawadayaal waa u jeedaan dhalinyarada ciyaarihii ka qayb galay iminkana daawanaya ciyaarta runtii ciyaartii finalka ee Birmingham Small Heat Tigers la yiraahdo iyo kooxda Woodward Park ee magaalada Manchester ayaa loo xiisanaya aad ayaa loo daawanaya garoonka waa soo buuxsamay ciyaar kalena saa la socotaan under 14 waxay ka socotaa banaanka ay ka socotaa marka qofka ayaa la keenay Maxamed Ismaaciil waxaan u jeedaa Maxamed Ismaaciil ciyaarta ka war xiisaheeda wallahi laba kooxood oo waxa isku yimid ma sha Allah hadda goolka hadda ugu dambeysay meeshu baas ka siiyay haddaan abliishowga sheekeen wax la yaabo weeyaan ma sha Allah kulaba ciyaartay mustaqbal leh anu kullu waxay la tahay qaar badan oo mustaqbal laga helay hadii xagga saa lagu sii wado ma sha Allah wax kale ma oran karo ma sha Allah
marka garoonkii waa buuxa cayaartii runtii difoosiyaasha aad ay u kala duwan yihiin waxa badan Manchester magaaladooda ayaa waxa lagu yahay marti ayaa lagu leeyahay xaji Cabdiqaadir Cadaay haye maanta final la fadhiisan ka ciyaartan wallaahi waxa waaye Manchester waxay noqotay hooyada isboortiga marka Soomaalidu waxay tiraahdaa wadaad quraanku aqribi aqbal waa hadii la yiraahdo macnaha waa ku farxaa marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay 2007 barnaamijkii intaan ka bilownay in maanta ardaydeedii inay shaqeynayaan marka aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaana meesha ka cad Manchesterna maanta inay midaysan tahay oo macnaha hal odayaashoodii maamulkii kulli macnaha inay wada shaqeynayaan waxaan rajaynayaa kooxda ciyaar fiican inay badin doonto insha Allah final thank you aad u maasan tahay xaji Cabdiqaadir Cadaay waxa kale oo halkan ku safan dadweynihii kale oo ka soo qayb galay iyagoo runtii aad ula dhacay ciyaarahan saa ku aragteen Maxamed Ismaaciil waxaan ranay sayga ruushka waxaan u jeedaa ciyaaryahan si fiican u taqaanaan waxaan filay wiilka Ingiriiskana waa keentay ciyaarihii all the boys xogaa dhaawac ka soo gaaray waxa ii sheegtay ciyaarahan saa u aragtid walaalka ka weyn waa sayga ruushka da'di ka weyneed waaye ka yareed da'di ku weyneed sabab ka war ciyaarta arsi xiisa leh u dhacday si wanaagsan si aan filnayna absolute aan kala kulanay aad waxa difaaso ahayd Wembley maxalli ku reeb boys semi final aan ku arnay wallahi niyo waxaan u maleynaa xogaa yar baa nimankan Manchester degan sibay noogu diyaarsiin ma aqaan safarka iyo wixii iyo iyadoo saaka 5 o'clock dhalinyarada ay soo dhoofeen iska daalnay ayaa haddana waxa dhacday niman professional waay ma sha Allah dhulkaan ay maalmo ku ciyaaraan homekooda joogaan niman la iska celin kara ma wallahi ciyaar fiican ay soo bandhigay caruurta waa dadaaleen laba daro iyo hal badisi hal laga badiyay marka meel fiican ay soo gaareen waana loo baahan yahay caruurta saan oo kale loo dhiirigeliyo saran kasina la keeno ay sarkaan isbartaan ayagana moor ay ku faraxsan yihiin markay yimaadaan meelahan oo kale waa maasantahay waxaan u jeedaa Maxamed Ciise Cali Digeye oo tifoosaha North London ayuu ahaa Lordship Lane semifinalka ku reeb ka war ciyaartii wallahi anigu hadda markaan dibadda u baxay ciyaartii horta waxaan imid laga badiyay nasiib darro waxaan aaday markaan dibadda u baxay waxaan dadkii Northka igu soo ordeen ay dhaheen cadaalad darro meesha lagu sameeyay waxaan u dhiibay guddiga oo mataqaana farsamada ayaan sugeeyay ayaga hadda arintooda xilnooy laakiin waxay sheeganayaan in adigu xogaa yar lagu sameeyay laakiin waa idinka badiyay ala kulli xaal thank you very much رجعن امين محبوب انتقنا جول قعنه daawadayaal ciyaartii kooxda Birmingham Smalley Tigers iyo kooxda Woodward Park Football Club ee Manchester finalka under 12ka waxay soo gaartay penalty 2-2 ay ku dhamaatay runtii waxay ahayd ciyaar aad u xiiso badan iminka waxaan sugnaaba waa shoot out ama penalty ciyaartuna aad ay u adag tahay xiisaha waxaad u jeedaa tifoosayaasha Birmingham inkastoo laga badan yahay haddana ciyaar wanaag aad u qurux badan ay muujiyeen waxaan sugnaaba waa ciyaartii finalka under 12 ee kooxaha Birmingham Smalley Tigers iyo kooxda Woodward Park Football Club ee magaalada Manchester. Yes. Yes, waxa ku guuleystay kooxda Birmingham Smalley Heat ayaa ku guuleysatay saa ku aragteen dabaaldega waxaad u jeedaan Smalley Heat Tigers ayaa ku guuleysay Birmingham aad ayay ula dhaceen dadkii ka soo qayb galay ciyaartan runtii waxay ahayd ciyaar aad u xiiso badan waxaan aad uga xunnahay kooxda Manchester City ee Woodward Park in looga badiyo penalty iyagoo ciyaar wanaag muujiyay oo 2 gool iyadoo lagu leeyahay ay 2 gool oo bareejo ay keeneen laakiin ciyaartii waxay raacday kooxdii ka socotay magaalada Birmingham ee la yiraahdo Birmingham Smalley Heat Tigers oo runtii ku guuleystay ciyaaraha penaltyga waxa mahad gaar ah iska leh University TV marka hore oo ciyaarahan si fiican igu soo gudbinaysa marka labaad waxa ciyaaraha hirgeliyay dhalinyarada aad u argaysiin dhamaantood dhalinyarada dharkan wada cadaanka xiran oo hirgelisay ciyaarahan si qurux badan u dhacaan sacab bay mudeen dhalinyarada sacabka loo tumo marka kaleete waxa mahad u celinayna odayada Manchester iyo odayada banaanka nooga yimid aad baa u mahadsantiin hadda waxa la soo gaaray in la bixiyo koobabka iyo biladaha ugu talagalay kooxii ku guuleystay iminka waxaan u yeeraynaa kooxdii under 12 runner-up ahaa ee kooxdii ka timid magaalada Manchester kabtankooda iyo waxaan u yeeraynaa macalinka kooxda
iminka kooxda Birmingham oo ku guulaysatay koobkii under 12ka Birmingham iminka waxaanu yeeraynaa kooxda Iqra oo ahaa runner up oo ka socda magaalada Leicester under 14ka Iqra kooxda Bolton oo ku guuleysay votinga ku guuleysatay kooxda Bolton gudiga marjaca waxa guddoonsiinaya Axmed Nuur Saygar Ruushka ayaa wuxuu idin guddoonsiinayaa bilad Axmed Nuur gudiga marjaca baliisha iyo cawad waxay guddoonsiinayaan Axmed Sheel iyo Maxamed Ismaaciil isoo Maxamed Ismaaciil iyo Axmed Sheel cawad iyo baliisha barnaamijkii quruxda badnaa ee magaalada Manchester oo aan ku dhex jirno dhalinyaradan Soomaaliyeed ee qayladooda meel walba laga maqlayo halkan ayuu ku soo dhamaanaya maanta runtii waxay aad maalin aad u farax badan waxaan halkan uga jeedaa kooxdii Bolton oo ku guuleysay koobka oo sida halkan u istaagan oo sawir laga qaadayo waxay ahayd maalin ay aad ula dhacay dadweynaha ka soo qayb galay barnaamijkan waxa soo qoray madaxa Sporting University TV Cabdiqaadir Maxamed Farax Biriq waxa cameraman editing-ka ahaa Jibriil Maxamed Jibriil waxa kaloo la shaqeeyay Rashka inta kulmi doona barnaamij noocan oo ah anigoo Cabdinaas Ismaaciil waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi haddii uu barnaamijkan ku dhaafo ka daawo safifilms.com